dhawaad 50 dal oo Afrikaan ah ayaa horaantii sanadkan saxiixay heshiis ganacsi oo aaga ganacsiga xorta ee Afrika, laakiin madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa joojiyay saxiixa heshiiskaasi isagoo sheegay inuusan saxiixayn heshiis wax u dhimaya warshadaha iyo ganacsiga dalka. haddaba si xaaladan wax uga ogaano ayaan warbixintan idinkaga diyaarinay. halkani waa shirkadda gawaarida ee Inoson. waa shirkad sanado badan jirtay soona saarta baabuurta ku suntan astaanta waxa lagu sameeyay Nigeria. asaasaha shirkaddan oo lagu magacaabo Innocent Chukwuma ayaa gawaaridooda gaarsiinaya dalka oo dhan. waxa uu rajaynayaa inuu ballaariyo si uu u soo jiito suuqyo kala duwan oo ku yaal gobolka. 5 sano ee soo socotana waxaan soo saari doonaa 15,000 oo qaybood oo gawaari ah. inuu awood u yeesho ku ganacsiga Afrika oo dhan ayaa u ah horumar uu soo dhaweynayo, balse shirkado badan oo ku yaal magaaladan ayaanan la qabin aragtidan. shirkaddan soo saarta bacaha oo ku taal isla deegaankan ayaa wax soo saarkeeda waxa saameeyay helitaan la'aanta waxyaabaha laga sameeyo bacaha. inta badan alaabahan isticmaalno weli waa la soo dhoofiyaa, marka haddii aadba soo dhoofinaysa oo aad la tartamaysa ayaga oo haddaba samaysta alaabahooda iyadoo uu naga xadidan yahay awooddeenna kaabayaasha ay waddooyinka xun yihiin, amni darrada ka jirta dalka iyo wax walba waxay noo ahaanaysaa faa'iido darri weyn. marka waa inaan waxayna habaysanno. baahida ah in la helo isbeddel dhanka warshadaha ah ayaa ahayd ajandaha ugu horeeya ee dowladda. waxa ay sheegayaan ku biiridda aaga ganacsiga xorka ah ee Afrika inay weli ka fikirayaan, balse aysan ahayn mid ay ku dooranayaan dhibaato soo gaartay dhaqaalaha dalkooda. haddii aan dareenkaagu kor u kacsanayn ama aad jilicsan tahay, waxaa laga yaabaa in Nigeria lagaga guulaysto ganacsiga Afrika ka dhex socda. ujeedku waxa weeye in sanadkan iyo sanadka soo socdaba la qabto shirar iyo aqoon isweydaarsi lagu go'aansanayo ganacsiga ay Nigeria la yeelanayso waddamada kale ee Afrika iyo sida ay u dhowri lahayd qaybaha xudunta u ah wax soo saarkeeda. wasiirka ganacsiga ayaa sheegaya in ay soo socdaan hindisayaal badan oo lagu taageerayo hanaanka warshadaha. hase yeeshee qaar ka mid ah caqabadaha haysta warshadaha Nigeria ayaan weli waxba laga qaban caqabadahaasi oo khatar ku ah jiritaanka waaxdaasi.